deeqdan ay soo direen hablaha jaaliyadda waddanka dibaddiisa ee kasoo jeeda gobolka Sool ayaa waxay soo gaarsiiyeen cusbitaalka guud ee gobolka Sool cunno iyo masaariif 15 casa ay ugu talagaleen taasoo uu guddoonsiiyey cusbitaalka Cali Cabdinuur Xaashi oo hablahaasi ay soo wakiisheen. deeqdan ay soo direen hablaha kale ah Yaasmiin Jaamac Cabdibile Kaltuun Xabxab Maryan Cabdilaahi Shuuriye oo mahada deeqdii ugu horeysay ay soo gaarsiiyeen hablahaasi cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. sidoo kale waxay soo gaarsiiyeen go'yaal taangi dhanka biyaha oo loogu shubo haweenka qaybta hooyada iyo dhallaanka gaadhi ay iyaguna ka caawiyeen dhanka taayirada oo cusbitaalka u adeega. sidoo kale qaybta umulaha ayaa waxay ka taageeraan ka shaqeeya dhanka mushaharaadka qaar ka tirsan. horeen halkaasi waxaa ka hadlay wakiilka hablaha ay wakiisheen Cali Cabdinuur Xaashi waxaana ka mid ah hadalkiisa sida tan. waxaan idin wadnaa 15 cisho adeegood raashinkoodii iyo isbeesadoodii oo ah bukaan jiifka isbitaalka noogu sheegtay ilaa 40 qof. waxaan idin wadnaa 5 kiisho baasta 3 kiisho oo bariis ah 4 milyan iyo 200 oo shilin Soomaali ah oo tii maalintii waxa ku baxaya 270 isbeesadooda iyo caanaha habeenkii iyo cashadooda waa 15 cisho isbeesadoodii. waxaan lacagtan la baxay gabdho deegaankan 3 gabdhoodana la soo gaarsiiyay Kaltuun Xabxab Yaasmiin Jaamac Cabdibile iyo Maryan Cabdilaahi Shuuriye. waxay daba socotay lacagtii hore ee ka iibin jiray gooyaasha iyo taayirka biyaha iyo taayir gaariga baaqi ka hadhay oo aan hayay weeyaan diireeti tibinaynay. insha Allah ilaa birina waxa laga yaabaa inaan xoogaa kale idinkana qolo kale ka sugayno. waxaan halkaasi ka mahad celiyay Dr. Cabdi Maxamed Buraale oo markii ugu horeysay hablahan ayna soo caawiyaan deeqna ay noogu soo dhiibaan Cali Cabdinuur Xaashi. waxaan uga mahad celinaynaa deeqdan daba joog ay soo gaarsiinayaan cusbitaalka inkastoo cusbitaalka magaalada Laascaanood haatan uu maraya xaaladii ugu liidatay marka loo eego dhanka cunooyinka iyo raashinka iyadoo ay ka dayriyeen dhakhaatiirta cusbitaalka ku sugan. waxay ka tirsanadeen oo keenan maruu ka keeno Red Cross-ka uu raashin ka keeno raashin kale dadka uu ka soo codsado dadka ka keeno inta badan bishii 2 bilood hal mar iyagu mucaawino noo soo wada cusbitaalkan xaaladiisu aad bay soo runtaa u yeeshaa sidoo kale arkay oo male bukaanku cid caawisa male WFP baa raashin yar keenta bishan waxay keenaan hal jooyado misiro kaliya ayay keenaan jeesel loo karinaya iyo galey shiidan oo u baahan suugo u baahan caano u baahan wax walba u baahan. marka wixii ma jira wixii hadii la israa hal kariyo lama karin karo. patients kooda mu iska tigilaan guriyooda aad ilaahay aad buu noo caawiya aad waan u mahadnaqaynaa si runta waan u ogsoonahay de ilaahay baa abaalkiisii bixii soo direen de waa mahadnaqaynaa iyaga bixii soo diray oo Cali noo soo mariyay aad baan u mahadnaqaynaa si runta. Cabdikariin Nolol magaalada Laascaanood.